wuxuu ahaa keligii talis muslin ah ninkii dilay nus milyan oo qof. wuxuu isku yaqaanay Afrika ninkii xureeyay isagoo dagaal ku soo qaaday Soomaaliya. waxaa jira dad badan oo dambiyo galay oona falal gaboodnimo ah sameeyay. waxaan rabaa inaan muuqaalkeena maanta aan kaga hadlo 10 hogaamiye ee ugu naxariista daran taariikhda. assalaamu calaykum, soo dhawaad daawadaheena. fiidiyowgani aad daawanayso waa sahanka dunida. haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir gambaleelkana furo si aanay kuu dhaafin muuqaaladeena dambe. haddii aad horay noola joogtayna fiidiyowgani noo like garee. mahadsanid. Genghis Khan waa mid ka mid ah daalimiintii ugu naxariista darnaa ee soo mara taariikhda bini'aadamka. si uu boqortooyadiisa u dhisto ayuu sabab u noqday 40 milyan oo qof ah dhimashadooda. waa dhiig-yacab ka soo jeeda Mongolia. 12 milyan oo meel ayuu qabsaday. waana hogaamiyaha keliya ee sidaas sameeya. Idi Amin keligii taliye military oo ku soo caanbaxay ikhtiraacista qaababka dadka loo ciqaabo. Idi Amin wuxuu ahaa keligii talis muslin ah ninkii dilay nus milyan oo qof ah. wuxuuna isku yaqaanay Afrika ninkii xureeyay wuxuuna dagaal ku soo qaaday Soomaaliya. Caligula nin waalan oo 29 sano xukumayay Roma. waxa uu aad u jeclaa in uu ragga ceebeeyo dumarkooduna uu kufsado. Adolf Hitler hogaamiye Jarmal oo sabab u noqday bilowga dagaalkii labaad ee adduunka kaasi oo sababay dhimasho in ka badan 60 milyan oo qof. Joseph Stalin ninkii gacanta birta ah ku maamuli jiray midowga Suufiyeedka oona intuu xukunka hayay oona baabi'iyay nus milyan oo qof ah. Adolf Eichmann sarkaal Jarmal oo u xil saarnaa Yahuuda wuxuu ka mid ahaa saraakiishii ugu muhiimsanaa ee mas'uulka ka ahaa xasuuqa. Vlad Imbalarkii saddexaad ninkani wuxuu ahaa nin jecel dilka dadka wuxuuna aaminsanaa inuu runtii cabo dhiigga dadka. Leopoldgii labaad boqorkii Biljamka boqorkii hore ee Biljamka taliyihii u xil saarnaa qaaradda Afrika isagoo dilay malaayiin Afrikaan ah. Pol Pot wuxuu u dhashay dalka Cambodia. wuxuu xasuuqay dadka dalkiisa wuxuuna dilay 2 milyan oo qof ah. Attila magacani ayaa weli lagu xasuustaa naxariis darada iyo dulmiga. wuxuu ahaa taliyihii ugu dambeeyay ee Hanniska wuxuuna caan ku ahaa inuu soo saaro dhowr hab oo jirdil ah.